بدل ممكن شن دور راح متين هنا لوكيل ما شاء الله ها والله شعبنا بالبلد مصاحبه inta aanan furin xirmada dulucda warkayga marka hore waa sidee xaaladda cawayskii ee magaalada Muqdisho iyo ku dhiirashada bulshada ganacsiga iyo dukaamaysiga xilliga habeenkii ah waxaan ku jiraa dadkii wadanka joogay muddadii oo kala duwan ee soo maray xilligan xilligii asliga oo ugu fiicnaa ugu amni badneed ganacsiga xilliga hadda wuxuu ku jiraa kobac fiican dadkii ku dhiiranayaan guriga qurux badan ganacsiga qurux badan iyo dadkuna way waxyaabo badan oo danay jireen waa loo keenay marka ganacsigu fiican شو قرهان وقت هبينكي جناحي هذا أدو في عينها وحرك كرتا دنيا الجامعة أو بدكود أي قلت كود قان صدق إن جناحي سمير وقت هذا هبينكي سي مجال كل عيد القارة وقرؤ صفحة هبينكي جناحي مجال يومانك حتى لفت كذا قلت بدهم يحفظوا صعب كمجال تذكرني صفحة مجال قصاد ما شاء كان أنا قرهان دنيا مركان هاي تذك ما دويتها كي ما أنا مقابلة كي ما أنا حافظت وسينا إن أنا مجال جناحي كجرون نبضة كجرتو صعب مجال في عينها qof laga yaabaa suuq meel kala joogo inuu inta isgoyska dabka ama marka mukaramo imaado ganacsi qof kale uu buuxiyay degan in waxa laga yaabaa oo kaaraan u aado ganacsi oo kale yani maanta Muqdisho waa waxay noqotay adduunyada la tartamaysaa calow mool oo kale marka ka dukaamaysanayso waxaad moodaa Dubai inaad joogto amniga iyo ganacsiga waa isku xiran yihiin sababtoo ah hadaan amni la helin ganacsi ma soconayo marka si amni loo helo waa inay ganacsatada canshuurta bixiyaan dawladda la shaqeeyaan gobolka banaadirna ay la shaqeeyaan waa xilli dhexe oo habeen ah waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho qaybo kamid ah Muqdisho xilligan habeenkii xilliga aad doonto waa dukaamaysan kartaa haddii aad tahay ganacsadana waad ganacsan kartaa haddana waa ku soo noqday waxaan u jeedaa insha Allah horumar inay sameynayso dhinaca ammaanka ahaado dhinaca businesska ahaado laakiin halka arrin rabo inaan ku baraarujiyo waxay tahay haddaysan dadka ganacsatada ah ee magaalada Muqdisho oo runtii laga qeyliyay aysan u soo jeesan dalka inay wax ka qabtaan oo wax ka dhisaan shilin dibad laga keenin laguma dhis karo wadankan xoolo la soo bari international community keentan laguma dhis karo waxa dhisi karo wadan waxa dhisa waa dadkiisa way ganacsatada marka waa inay lacagta canshuurta bixiyaan waa inay meesha ay alaaqal ay ku ganacsanayaan horteeda ay nadaafiyaan oo dhisaan oo hagaajiyaan nin walba meesha ku ganacsan aad iyo aad meel sare soo mara magaalada waa nabad dadka aad iyo aad u ganacsanaa ganacsigana aad u wanaagsan yahay run ahaantii taasi ma jirto dadka ganacsigana aad u socdaa wax dhibaatana ma ku qabno ganacsigana uu horumarsan yahay ma sha Allah isha ayaa marqaati ah tani waa Muqdishadii muddo badan maqribkii laga xiroon jiray laakiin hadda maya waxaa jira goobo loo dhaclaysi iyo haasawo tago xiliyada habeenkii ah oo ay dhalinyaradu ku caweeyaan dhiilo la'aan caawa waxaan nasasho ku imid beerta nabadda sida aad u taqaanaan beerta nabadda waa meel aad loogu soo dalxiisa markuu barnaamijku kugu furan yahayna aad tahay meel maskaxda aad ku dibsan karto waxaan aaminsanahay waxay ka mid tahay xamar meelaha ugu dalxiiska badan ee loo imaado wallahi amaanka magaalada aad u soo qabsanaya sidii hore ma aha sidaan si ka wanaagsan arjeynayna inay sii noqoto insha Allah amaan guud ee magaalada Muqdisho 5 sano ugu dambeysay aad buu u soo hagaagayaa sare u socdaa amaanka inta badan uu fiican yahay degmooyinka 17 ay ka kooban tahay magaalada Muqdisho dadku way socdaalaan sidoo horena aad ugu fiican yahay amaanka marka loo fiiriyo 5 sano oo la soo dhaafay wixii ka horeeyay kaad anigu ku faraxsanahay wadankayga aan imid oo loo maleynaa hamar sidaas ahaan oo ka maqanay magaaladan 3 sano oo haddana aan joogo 20 cisho oo farxad iyo wanaag aan ku imaaday aan ku faraxsanahay maanta wadankayga hamar aan joogo oo loo maleynaa wadamada kale laga cabsanayo Muqdisho lama tagi karo khalad ayaa u fahansiin wadamada qarbeed Soomaaliya aad ay u fiican tahay Muqdisho weyna fiican tahay ma sha Allah tabarakallah waxaana khayr aan kalma kulmin wadankeena waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu noo fiicneeyo Ilaahay noo hagaajino wadankaaga wax ku dhaama male anagoo xaruurana laga kaxeeyay maanta farxadan wanaagan ayaa halkaan la soo kulumnay waxaa jirtay xilli aysan ku fudeyn inaad u fiidsi tagto magaalada Muqdisho adigoo caafimaad qaba haddana haysta dhaqaale inkasta oo ay weli dadku dhiilo guud dhanka amniga qabaan haddana waxaa jira ciidamada dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay lagu arkayo magaalada Muqdisho xilliyada habeenkii ah iyagoo mootooyin ku rondaynaya
الأجر وعر magaalada muqdisho waxay iska bedelaysaa meelo badan waxaana ka daliil u ah ganacsiga xilliga habeenkii ah iyo dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho Cabdi Cays Abdullaahi Maxamed Cabdi Cays Soomaali Cable magaalada muqdisho